madaxweynaha dawladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya uu weheliyo kusimaha ra'iisul wasaaraha iyo xubno kamid ah golaha wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka ayaa maanta soo maray qaybo badan oo kamid ah xerooyin ay degan yihiin dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo goobo si gaar ah loogu talagalay in maanta lagu qalo xoolaha lagu weyneynayay Ciidul Adha kuwaas oo ku yaala degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley ee gobolka Banaadir madaxweynaha ayaa socdaalkiisa ka bilaabay ugu horeynba kaamka rajo ee degmada Wadajir isagoona booqday xarun lagu talagalay in lagu qalo xoolaha Ciidul Adha halkaas oo ay ka socotay howl xoolo qalitaan ah wuxuuna madaxweynuhu u sii gudbay deegaanka Jaziira oo iyana lagu qalayay xoolo fara badan oo loogu talagalay in maalinta Ciid lagu weyneeyo madaxweyne Shariif ayaa indhayn ku suubinayay xoolaha la qalay sida ay yihiin iyo sidoo kale in ay helayaan dadka masaakiinta ee u baahi qaba madaxweynaha ayaa warbixino ka dhageysanayay xubno kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda maareynta masiibooyinka ee gacanta ku haysa xerooyinka barakacayaasha kuwaas oo ka warbixinaya sida ay tahay xaaladda dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Muqdisho madaxweyne Shariif ayaa ugu dambeyn waxa uu tagay kaamka ugu weyn barakacayaasha ee loo yaqaan Badbaado kaas oo ku yaala degmada Dharkeenley isla markaana ay ku nool yihiin in ku dhow 5,000 oo qoys oo ka soo barakacay gobolada dalka Soomaaliya markii ay ku haleeleen abaariyo xoogana bartamihii sanadkan madaxweyne Shariif ayaa ugu dambeyn halkaas warbaahinta kula hadlay isagoona uu hambaliyay ummadda muslimiinta gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah munaasabada Ciidul Adha wuxuuna sheegay madaxweynuhu inay tahay arrin lagu farxo muuqaalka barakacayaasha ee xilligan sida uu og yahay marka loo eego markii ay soo gaarayeen magaalada Muqdisho bani aadamku hadii uu dadaalana Ilaahay subhanahu wa ta'ala natiijada tusay dadkii aan wada ogeyn inay dhibaataysanaayeen walaalaheen inay maanta u diyaar garoobayaan inay waxa u kala baxaan ay gurin ciyaaraan wax lagu farxi karo intii waqti kooban gudihiis marka Ilaahayna uga mahad celiheynaa dadkii gacanta ka geystay oo Soomaali ajnabi lana uga mahad celiheynaa markale waa intaas oo loo sii dhawaaday oo dadaalka la sii farabadiyo maxay la waajib nasaaran waa waajib diini ah waa waajib qaran waa waajib yaani dadnimo iyo dalnimo marka qof walba inuu gacan ka qaato sida loo gargaar lahaa dadkaas loo kaalmay lahaa waxaan sheegay ku jirin dadka soo barakacay inay ahaayeen dad wax soo saaray loona baahan yahay markale in laga fikiro sidii ay u naqalahayn dad wax soo saaray madaxweyne Shariif ayaa sidoo kale waxa uu ka digay in aan la isku dayin in la dhibaateeyo hantida dadka barakacayaasha iyo gargaarka la soo gaarsiinayo isagoona sheegay inay dawladda arrinkaasi talaabo adag ka qaadi doonto cidii ku kacda dad waxa jira ku hawlan inay dhibaateeyaan dadka soo barakacay raashinkooda inay dhibsadaan iyaga dhibaateeyaan dadkaas markale waa u degayna calena waxa sameeyay wax aad iyo aad foolxun oo wax Ilaahay abtisna ku foolxun adduunkana sharaf darro ah markale waxaan leenahay dadkaas ka joogaan dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka soo barakacay walaalahooda ay heleen gacan siiyaan dawladda gaar ahaan ciidamada qalabka sida booliska iyo sugidda militariga waxa laga rabaa inay waajibkooda gutaan oo cid kasta oo isku dayaysa inay dhibaatayso dadka soo barakacay iyo dadka shacabka guud ahaan ama haka ganacsato raashinkooda ama si kale ha u dhibaataysan tilaabo ka qaadan shacabka ka codsanayaan inay gacan ka geystaan oo cid kasta ay arkaan inay arrintaas ku hawlan tahay inay soo sheegaan dhinaca kalena munaasabad ballaaran oo ina lagu weyneynayay maalinta Ciidul Adha ayaa waxa lagu qabtay hoyga ra'iisul wasaaraha ee magaalada Muqdisho munaasabadaasi ay ka qayb galeen xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka iyo qaybaha bulshada waxaana munaasabadaasi la isugu hambalyeynayay munaasabada Ciidul Adha iyadoona halkaasi ka hadlay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka ganacsiga Cabdiwahaab Uwaas Xuseen Uwaas Khaliif munaasabadan waa munaasabad ciida runtii ismalihi ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay maanta dhibaatada haysata marka loo fiiriyo ama abaarihi ha noqdeen ama dagaalada ha noqdeen yaani waxay ahayd mid nin kasta oo islaam ama Soomaali uu sugayay in ayadoo intaaba ay haysatana la farxo maxaa yeelay waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan oo sida uu wasiirka arrimaha gudaha sheegay yaani ciidii ama munaasabadii ama faysadii ugu weyn islaamka marka la fiiriyo waa ciidda maanta aan joogno kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo tukanay masaajidka Isbahaysiga oo runtii tira aad u badan ay ku tukatay oo naxasuusisay nafteeda in amnigii iyo maxaan ku raadayay jaceylka Soomaaliyeed uu soo noqday maanta ayaa caalamul islaam iyo dalka Soomaaliya si weyn loogu dabaaldegay maalinta Ciidul Adha iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo dunida islaamkuba ay isku hambalyeeyeen maalinta Ciidul Adha ee loo dabaaldegay Cabduqaadir Cumar Cabdulle Universal TV Muqdisho.